بسم الله الرحمن الرحيم ضل يسلقرن يا منير waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo dunida ka joogtaan khaasatan shacabka geeska Afrika ee Soomaaliya iyo wadamada la dariska ah haddaan ku bilaabo barnaamijkeena caawa iyo siyaasadda geeska Afrika oo caawa ah habeen khamiisa bari jimco soo galayso bishuna ay tahay 11 ama 12 bisha September xaaladaha guud ee geeska Afrika say yihiin nabadgelyo darrada soo socota Itoobiya oo barnaamijkii ugu weynaa ee ay abid fulisay ku tallaabsatay samaysayna dam dhaqaalihiisu ku fadhiyo dhowr iyo 10 bilyan ku baxeen shacabka Itoobiya iyo dowladda Itoobiya oo ku midaysan dhaqaalaha ugu badanna ay laga soo ururiyay dowladda iyo shacabka laga soo ururiyay intooda badan iyo meelaha ay soo luflufteen oo carabaha ka mid ah intaa ka bacdi dhaamkaas iyo siyaasadda geeska Afrika ka socota maanta xaaladaha adduunka isbedelaya Israa'iil oo Dooxa weerartay kuna laysay dad u dhashay waddanka Qatar iyo Falastiiniyiin ilaalinayay madaxdii Xamaas iyadoo la sheegayo madaxda Xamaas inay salaad duhur tukanayeen xilliga oo Ilaahay u tagayeen waxaa adduunka ka socda waxaynu aragnay oo maqalay maaha magaalo dhan oo 4 milyan oo qof ku nool yihiin oo bariga dhexe ku taala oo badda Mediterranean-ka saaran ayaa xabaal laga dhigay hadda Middle East-ka meel nabada ma jirto Iraq waa la dumiyey Syria waa la dumiyey Lebanon waa la dumiyey Libya waa la dumiyey Algeria way soo daba qabatay maroraa la dumiyey 90yadii sidii Soomaaliya oo kale loo dumiyey Suudaan waa la dumiyey Yemen waa la dumiyey hadda Qatar bay maraysaa Iran dhulkaa la dhigay maalin weyd Qatar bay hadda maraysaa waxa weeye adduunyada noocaasa ku noolahay markii Ronow reerka adaa u hadhayay maraysaa xoog bay xaaladdu maraysaa waxaa socda waa colaad
iyo boob dhuleed iyo boob dhaqaale ayaa dunida ka socda intaa in la fahmo wey innaga waxayna khuseeya markaa waxaan degannahay most strategic location oo badda Indian Oceanka iyo gacanka cadmeed oo Red Sea oo gala meesha ay ku kulmaan oo dhaqaalaha dunida 65% uu maro maraakiibtu sidaa ka warqabtaan Soomaaliya situationka ay ku sugan tahay maamul goboleedyadii iska soo wada horjeeda madaxweynihii Soomaaliya diyaarad saaran 24 hours qiimihiisii hoos u dhigay siyaasad xumo arrimaha dibadda ah oo wadamo iswada haysta oo madax iskula jira oo maalin mid ka degaya madaxweynuhu siyaasaddan iminka ugu dambeysay ee laba wadan oo biyaha isku haysta oo wadan saddexaad oo waliba inaga xabiib inoo ah oo Suudaan la yiraahdo uu ku dhex jiro in dowladeennii iyadoo waxba uga 15 ahayn dhexda baalato khataraha ka iman kara iyo madaxweynaha halista uu ku jiro in diyaaradda lala gubo ama la sumeeyo ma halis uu yahay waxyaabo fara badan baa dunida ka socda isbedelka dunidaas isbedelaysa ee isboobaysa ee islaynaysa ee badaha raadinaysa ee badaha isku fadhida ee macdanta raadinaysa ee shidaalka raadinaysa ee siyaasadda isku haysa innagu Soomaali ahaan waxaynu nahay ummad ka aradan midnimada iyo horumarka iyo wax wada qabsiga dibad joog iyo guda joogba ama qurbaha joogeen ama dibadda ha joogeen ummadda Soomaaliyeed iyaga isku foorara xasad iyo lugstiid iyo wareer baa lagu jiraa madaxdeennii waa aragtaan mid la hadlaa kuma jiro ama Somaliland ha joogo ama Muqdisho ha joogo ama ha joogo Puntland ha joogo mid la hadlaa ma jiro wadamada shisheeye ee aan xiriirka la wada leenahay mid walba waa la saaxiib mana ogola in ay wada hadlaan imaaraadka ilaa iyo Jubba Kismaayo jooga ilaa iyo madaxweyne Cirro inta u dhaxaysa kulligood waa la heshiis dowladda federaalka ah haddana mid la hadlaa ma jiro waa la kala ilaalinaya siyaasadda laynagu hayo ee burburinta ah ee aynu ka indhala'nahay inaynu aragno ama fahanay ka mid tahay waxaa ka socda waddanka hay-ado samafal sheegta oo qaarkood khamro iyo doofaar iyo dhilaysi iyo khaniisnimo keenaan hay-ado waxaa jira dii sheegta oo wax aan diinahayn waddanka ku dhex faafiyo oo atheism ah ama shaydaan caabud ah kulligood waxay ka wada siman yihiin in dhaqanka laga dooriyo dhalinta Soomaaliyeed oo social media nimanka fangareeya ee hoteelada la isugu imanayo magaalada Muqdisho kalaabada habeenkii lagu soo jeedayo wariyaasha waddanka oo dhan meel kasta ka sheekeynayo odhanaya waxaa qurunkaa soo bandhigaya gabadh yaroo la kufsaday ilmaha halka lagu dilay qof baa halka lagu kufsaday miinaa qaraxday kana reer hebel iyo reer hebel baa islaayay waxa aad arkaysa rag baa fagaraynaya youtube-adooda lacag baa lagu fagarayaa Nairobina rag baa u fadhiya Hargeysa iyo Muqdisho iyo Garowe rag baa fadhiya oo wax qarsooma maaha iminka Facebook-ga soo geliya xitaa wax cad weeye in siyaasaddii divide and rule iyo destruction of culture inay nagu socoto ummadan oo madaxa saa wada ruuxaysa oo Ethiopia ku nool baa jirto Soomaali ah oo aad moodo inay waalatay oo madaxa say u ruuxayso madaxu inuu go-ay ku dhow yihiin garbaha saa muruqa la isgelinaya aad yaabayso waa qayb ka mid ah fasaadinta ummadda dhaqan maaha saf dhan oo gabdhaha iyo saf dhan oo wiilala oo Soomaaliyeed oo 20 jir ah waa inta dhar loo soo geliyo naasuhoodii gabdhii bannaanka yaalaan raggii maartay dhar cadcad loo soo geliyo gabdhihii dhar cascas loo soo geliyo alla is ruuxayaayo niikal ku jira koonfurtuna waaba kasii dareenba intay waxaa ku dayda israadeen bay nin iyo naag isku dhegan baad arkaysaa oo madaxa ruuxayo oo iska dhigaya sidii dhaantay inay ciyaarayaan
waxaasoo dhaqan xumo ah iyo waxaasoo balaayo oo la afuufayo dad baa maalgeliya waxayna kulligood ku biyo shubtaan kiniisado iyo shirkadaha shidaalka dowlado iyo siyaasado fogfog bay dabada la galaan waxaa la diyaarinayaa generation dhan oo aan salaadna tukan diinna shaqo ku lahayn ragguna ay ragga wax ka raadiyaan dumarkuna dumarka wax ka raadiyaan intaasaa la diyaarinayaa si ummadda loo bahdilo oo dhaqanka looga dilo oo dadnimada looga dilo oo faro looga wada qabto oo kulligood iyagoo faro laga wada hayo mid walba la soo qaawiyey rag iyo dumarba hadhow madax laynooga dhigo hawshaasaa socota hawl yar maaha waa hawl weyn wey waxaa maalgelinaya waa shirkadaha iyo hay-adaha iyo waxaa wada sheeganaya inay qaar baa xitaa iska dhiga inay miino baadhayaan oo macdanta gurta qaar waxay iska dhigaan inay yihiin biyo gelin ay wadaan oo dhulka baadha oo qaar baa waxay iska dhigaan inay maaragtay ay dhakhaatiir yihiin dhakhaatiir iyagoon ahayn bay waxay kusoo gabadaan inay dhakhtarnimo ku shaqaynayaan markaasi waxay faafiyaan waxyaabo kale adigu nin la rabo in naag laga dhigaa la rabaa mashruuca in soomaaliya laga fuliyo bal adigu imagine halkaan marayno meesha aan marayno rag baa la rabaa in laga jeexo baalkii dumarka oo baalkooda la jaro heerkaasaa laynala marayaa madaxdeenniina xabaalahay guranaysaa iyo qaadka iyo in qaadka la soo dejiyo lacag laga helo in dhulka la gadanayo lacag laga helo in xabaala meel kastoo xabaalahayd xabaalihii dadka laga guro oo laga dhigo hoteelo markaasaa lacag laga raadinaya dadkii masaakiinta ah malaayiinta ah homelesska ah baa dhulkii dowladda lagu haystaa iyo dhulkii banaanaa ee danta guud ahaa madaxdeennii waxay baran la-yiin xitaa war labada wadan ee nala dariska ah ee kenya iyo etoobiya ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweynaha kenya xitaa diyaarad private ma kiraystaan diyaaradda waddankooday raacaan markay meel aadayaan diyaarad private kuwa baxaan flight magaalada ay u socdaan flight aadayay fuulaan waxaan garan la-nahay annaga war madaxweyne aan diyaarad ka degaynin oo triibkiiba 500 oo kun iyo 400 oo kun qaadanaya xagee lagu arkay dunida xagee lacagta loo sii wadaa waddankan madax miyir qabta oo u naxaysa oo aan lacag raadinayn oo qiimahooda garanaya oo markay villa Soomaaliya joogaan 2 sanaba mar safar laga maarmi waayo u baxaya oo safarkaasina 200 oo nin oo ciidan wato 20 nin oo qolka u seexanaya ilaalinayso waxaa la rabaa madaxweynaha inaan cidla laga helin madaxweynaha la kufsaday oo cajalad laga duubay ma may oran karaa wax xagee lagu arkay ninka sii cararaya meesha wax xaguu socdaa miyaanu ogeyn mu'aamaradaha caalamka socda war dad aan madax ahayn oo laga yaabo inay siyaasadda hadda ku cusub iyo siyaasadda soo galaya baa la abuse garayaa cajalada laga duubaa markaasaa la yidhaha haddaad waxaa nala qaban weydo markaad madax noqoto waa kaa tuuraynaa systemkana waa kaa saarayna waxaan soo bandhigayna inta rag kufsanaya loo geeyo waxyaaba aan caqligaagu geli karayn baa dunida ka dhaca wixii baa inagu socda madaxdeenna iyo ragga xalana fadhiya iyo waddamaday u sii yaacayaan waa loo yaabaa soomaaliya madaxdeeda waa loo yaabaa calaa ayi xaal madaxweynaha soomaaliya mashruuc buu hadda la soo noqday markuu soo arkay horumarka etoobiya ay marayso wuu soo arkay abiy axmed inuu ku mashquulsan yahay inuu ummaddiisa mideeyo oo ummaddiisa dhisto oo caasimadiisii uu ka dhigay sidii dubay ka dhigay oo gobolladiisii dhulbeereedka ahaayoo dhan wanaajiyey oo beero soo saaray oo dahabkii la soo baxay oo dalka ciidan u samaystay 2 milyana uu hadda raadinayo inuu casab qabsado ayuu xasan waagu ku baryay xamar buu ka soo degay isagoo carcar qaba wuxuu bilaabay isku shaandhayn baa samaynaya dadkii xilalka hayay oo dhan buu la hadlay oo buuq buu bilaabay hadduu miyirsaday
maxaa u hadhay waxaa u hadhay 4 bilood ee sanadka ka hadhay iyo 2 bilood ee ugu horreeyay January iyo February 6 bilood baa u hadhay March madaxweyne xasan sheekh maxamuud baarlamaankii bedeli lahaa waa in lasoo saara ama baarlamaankii isaga soo dooran lahaa baarlamaan waxayna u badan tahay nin Soomaaliya 2 goor isku xigta lasoo doortay ma jiro walaa xasan baan jaaniska helin markii hal mar uu khadka ka baxay madaxweynihii kale oo la nacay ayuu jaanis helay على أي حال حسن الشيخ محمود حلي ومارتي حلي وديار قروبي لها إن دي بلوصو دورتو أي مريسا هذا دورة شادة دي دورتنا إن لوهش يمويان دورة شو يسوق وطمد عايزو على أي حال حالة دي إنو هالكاسي مريسا ودكيني إلى كسمايو إلى يوم مقالة دا قروبي wuxuu ka dhigay dhul aan nin la hadlaa jirin Somaliland waxaa lagu kala tagay shirkii Jabuuti waa tii MOU-da ay saxiixday isaguna waa kii heshiiskii Jabuuti laga soo saxiixday ahayd uu ogol yahay Somaliland inay xuduudaheeda iyo deegaankeedu inay yihiin kii Ingiriiska markii intaa laga saxiixday waa laga dhaqaaqay isagana waa ka dagaal ku soo qaaday waqooyi bari hadda soo saaray على أي حال صوماليا حال كيرو مريا أو إني قصدت تاجين أتكفى مسا بروفيسور عبد إسماعيل سبتر ولالكي أحمد إسماعيل سبتر هراء وقصوا النقطة بقدشوا وهنديسوا وسودي عبد نمر كيسي وحده مريسا بينه وكوا مريسا رجي من مدى الصومالية ودا آمن سنة وزير هذا سرسرة كقاعدة حلبان هذا كقاعدة قاعد بروفيسور ريين ما أنت كل جود هالجيش يقصود النقدين عبد الرحمن بيلتشوان وحي عدينا يساء إن لقى قوستي مقالة دا بقدشو مدحدة شوكتا إن الصومالي هل يهي الصومالي اسكسو علي قرأ النقدان إن لقى قوستي دولة أي دسانة أي نقطة دولة حافظة وطليع عيدا وزير ردي وحي مهم كانوا حافظه دي كيف صريان وحي أي نقطة وحكو كوبان لبر رير وولي بحال رير سيسة برسي سيسة ميري قندراسي دي قادري وحول بلغة دي وحكو فاميلي بيزنس لك halkaas weeye meesha aan marayno dadku inay fahmaan weeye nimankanina mid walba 3 milyan oo ciidan u samaystay badii bay hadda isku haystaan waxaana aaminsanahay abiye haddii uu arko in ciidan u dhigma ciidankiisa oo isla soo hordhoobo oo 1 milyan oo ciidan intuu diro 1 milyan la soo hordhigo inuu dib u fadhiisan doono tajaro ama zeyr caadi doono isagoo cidna waxba weydiin tallaabada daamka ku xigta waa in ama Masar ay duqeyso daamka oo dagaal halkaa ka dhaco ama waa in casab iyo tajaro oo Jabuuti ah iyo zeylac saddexda waa inuu mid xoog ku qabsadaa Abiy Ahmed warkiisu waa cad yahay geeska Afrika labada biyooda biyaha dhanaan iyo biyaha macaanba waa inaan anigu kontroolaa buu taagan yahay wabiga Nile iyo badda cas weeraa wey markaa madaxda hargeysa joogta ma ogyihiin waxa ku soo socda Somaliland wixii uu Muuse saxiixay ma ka warqabaan dhibka ay u keeni karto faa'iido iyo aqoonsi baa la raadinayaa laakiin aqoonsiga dowlad yaro Afrikaana oo dagaalo ka dhex socdaan ma aqoonsan karto Somaliland dowladaha waaweyn ee Mareykanka Ingiriiska European Unionka Carabaha wadamada maaragtay Ruushka China wadamada waaweyn ee dunida UN-ka iyo meel walba fadhiya ee mashaariicda horumarinta iyo mashaariicda la kala boobayo dhulka la kala boobayo wata kuwaasaa dowladaha ku qasba in la soo raaco ay dowladda ay dan kale intay aqoonsadaan ay kuwa kalena ugu yeedhaan laakiin dowlad yar oo ra'iisul wasaaraheedu
isaguba kursigiisa muran ku jiro dagaal lagu hayo oo habeen iyo maalin dagaal ku socdaan aqoonsi lagagama bedelan karo bad waa threat weeye arrintaas horena waa uga hadlay iminkana waa ku celinaya khatarta ugu weyna hadda soo socota waxa weeye heshiis baa naloo saxeexay anugu waxaan qabaa in ama la isku darsado oo geeska africa hal dowlad noqoto ama sidii hore loo kala fadhiyo oo aan la isdhexgelin waxbana la isku darsan haddii kale dee meesha dir baa ka buuxee dirku ha taliyo oo macaa muqdisho ha qabsado oo ninkaan halkaan badda cas ku wareersan soomaaliya oo dhan ha soo galo lawaa dire ha qabsado dhulkao dhan ha qabsado halka 20 wasiirada dira magacaaba ee federaalka oo dhan dir baa haystee waa ognahay xaalad daaroodkiina maamul goboleedkii kilka shanaad baa lagu wareejiyey calaa ayi xaal waa soo koobayaa warkayga madaxweynaha soomaaliya heshiis qarsoodi ah ayuu abiy axmed la soo galay abiy axmed inuu axmed madoobe iyo dani gacmaha iyo lugaha uga soo xidho oo uu diyaaradaha ka dejiyo oo uu la dagaalamo oo uu hoos keeno xasan buu kula soo heshiiyey xasan heshiiskaas ma oga inuu hadhowta isaga dhinaca kale u rogi doono heshiiskaas hadhow halis buu isaga ku noqonayaa waxaana iman doonta eritrea iyo ethiopia afawarqi iyo abiy axmed nobel peace prize bay qaateen markii ethiopia abiya la doortay maantana 2 milyan oo ciidan ay ishor fadhiyaan meesha tan waxaa dhici doona lama oga madaxweynaha soomaaliya waxaad moodaa intuu diyaarad ka qaato muqdisho ayuu addis ababa ka degay markaas wuxuu ka qayb galayaa daamkii rwanda iyo uganda waa diideen inay kasoo qayb galaan why because masar heshiiskii ay la saxiixdeen ee ingiriiska xilligiisii la saxiixay ayay ilaashanayaan sababtoo danay ku qabaan masar dowlad weyn oo ay wax ka gadaan weeyo oo iyagana wax ka gadata biyuhuna ka dhexeeyaan white nilka iyo blue nilka white nilka lama taaban uganda ma taaban rwanda ma taaban burundi ma taaban tanzania ma taaban sudan ma taaban south sudan sudanti kale ma taaban blue nilka ethiopia abiy axmed inuu ka qayb galo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa declaration of war against masar markaa inuu intuu diyaarad ka qaato muqdisho haddana masar aadaa ka suurowda xasan waaba siyaasad iska daba wareeg ah wasaaraddii arrimaha dibadda oo dhan waxay noqotay boorso xasan sheekh wato siyaasad arrimo dibadeed dalku male waa baaba waddankeeni soomaaliya gudihiina waa aragnaayo somalilan oo goosatay puntland oo ka daba goosatay waqooyi bari oo laga dhex soo tuuray galmudug oo aan magaalo u gudbaysaa jirin hirshabeelle oo shabaabku 90% qabsadeen shabeellada hoosoo gacantii shabaab ku jirta baya bokool oo hareeraysan jubbooyinka oo kismaayo iyo gado in yaroo ka mid a ay joogaan intii kale ay shabaab haystaan iyo xasan oo intiiba la dagaalansan waa halkaa arrimihii gudaha dibaddiina waa ka warqabnaa dalka soomaaliya wuxuu u baahan yahay isbeddel sax ah madax jaakadaha ay la soo galaan madaxtooyada aan bedelin dharkii ay la yimaadeen isticmaala xoolaha ummadda aan cunin xayawaanka dalka ku nool iyo maaragtay xoolaha bad iyo bariba ku jira inay mas-uuliyad inuu u hayo badbaadadooda fahamsan iska dhaaf dadka 45% iminka waali bay ku sugayeen soomaaliya 55% dharka way xidhan yihiin laakiin boqolkiiba 55kaasi 5 unbaa bad qabta inta kale oo isla hadlaysaa iyagoo shaqaysta oo business ku jira oo noloshooda raacda ayay wareersan yihiin because dowlad la-aan waqtigii oo ku dheeraaday
ishaysadkii oo ku dheeraaday ama ictiraafkii oo ku dheeraaday ama maamul goboleedyadii oo dawaqsan dowladnimadii oo la fahmi la'yahay nin villa soomaaliya joogo wixiisii ka dhigay xaasaskiisii iyo carruurtiisa iyo inta isaga ka hoos luflufata ka dhigay waddankii xabaalihii oo la gadayo masaajidadii iyo tiyaataradii oo la gadayo dhulkii danta guud oo dhan oo la gadayo boos raadin baa lagu jiraa boos la bislaysto wax kastana oo dhaqaalo la helayna kenya iyo waxaa la maalgelinayaa turkiga iyo jabuuti oo bangiyada lacagta la dhigto wax siyaasada iyo wax caqli ah xitaa dunidii baa nala yaaban wadamadii dariska ah qiimo male madaxdeenna madaxweynuhu markuu airbood ka soo tago wallaahi nin madaxayna loo diray gabadh baa loo dirayaa aan xitaa xil haynin war aaway brotocoolkii dowladnimo war nin markaad waddankiisa ku booqanayso soo inuu isagu soo dalbado oo airboodka kugu yimaado oo wax la nidaamiyo soo maha ama ra-iisul wasaaraha waddanka ama madaxweynaha ama wasiirka ugu muhiimsan waddanka inuu ku yimaado soomaaliya uu soo dhaweeyo madaxweyne iyadoo la dalbanin isagu diyaarad iska raacaya kolba meel u cararay hay-adaha iyo foorumada shirarka foorumka laga hadlaya cimilada iyo dhaqaalaha iyo adduunka ka dhacaya qaraabasho u tegay waxaasi dowladnimo maaha dowlad baa u baahannahay jiritaankeeni oo dhan baaba-ay qodobka halkaasaan kaga baxayaa somaliland wuxuu ku dhawaaqay madaxweynaheeda inuu cafis u fidiyey dhalinyaradii sool ka soo jeeday ee hay-adaha dowladda iyo hay-adaha samafal ka shaqeynaya ee markii dagaaladu dhaceen dhinaca u gudbay qoryaha qaatay ma fahmin anigu arrintaa war aan heshiino waa caqli laba maamul ha wada hadleen waa caqli beela ha wada hadleen waa caqli laakiin waa cafiyey yaa dembi galay ninkii dadka duqaynayay baa ayaa hargeysa jooga madaafiicda la dhacayay magaalada ninkii isaguna qoriga sitay ee magaaladiisa ku dagaalamayana waa isaguna waxaa leedahay waa cafiyey anigu ma fahmin cabdiraxmaan ciro cidduu cafinayo war horta marka hore dadkii dambiyada galay ee dadkaa weeraray ee dagaalka riday soo in lala xisaabtama maaha muuse waa joogaa iyo taliyaashiisii ciidamada in la xisaabiyo wey maxaa laascaanood ka dhacay yaa geystay haddii lasoo weeraray dowladdii amarkay bixisay muxuu ahaa haddiiba lasoo weeraray oo ay jabhaddu ama khaatumo raggi u dagaalamayay hadday iyagu dagaalka bilaabeen oo gala dagaalka uu bixiyey amar uu yidhi hala weeraro maxaad ku jawaabtay amarkaad bixisay muxuu yahay maxaad wax yeeshay waxaasoo dhan xisaabtan bay u baahan intaan la iscafinin iscafiskuna waa inuu labada dhinacba ka yimaada dad baa dhowr kun oo qof ka dhinteen oo magaaladoodii lagu dagaalamo calaa ayi xaal waxaan leeyahay niman yahow reer sheekh saxaaq somaliland waxaad tirahdaan dowladnimada waqooyi iyo koonfur baa laba gobol baan ahayn oo isku darsaday waa ku khasaarnay waa war laakiin ingiriis baa annaga xariijin noo sameeyey waxaa anigu ma qabo in lala hortago rag soomaaliyeed oo aynu dhul isku haysano haddii dadka dhul laysku haysto dadku dhulka waa kala degaa waa qabiilo dhulka laysku hayaa dad baa degan siyaasad hadday tahayna siyaasadaha lagu xaliyo hadday dhaqanto qabaa'ilka tahayna qabaa'ilka iyo odayaasha dhaqanka iyo duubabku ha xaliyeen laakiin waxa kan iska daba wareegaya hala joojiyo waxbaa sidana waa calaa ayi xaal anigu hawshaas anigu ma qabo ummad soomaaliyeed in la kala googooyo laakiin hadday timaado aabbahay waa ku khasaaray midnimadii soomaaliya waa qabaataa nimanka xamar jooga iyagaa soomaaliya kala gooyey waa qabaa ilaa 91kii ilaa 60kii qarannimo soomaaliyeed iyo midnimo soomaaliya cabdirashiid cali sharbaakh odaygii boqor muxuu u sheegay odaygii reer NFD ah
cabdirashiid wuxuu noo sheegay anigii maalin guur iyo hilowlo nala fadhiyo wuxuu noo sheegay in reerkiisu diidan yihiin in soomaali midowdo reerku ka hadlay waa reerkii kursiga ku fadhiyay xilligaa maxaa laysku haystaa war annaga soomaalinimadan iyo midnimadan iyo waxaana sheegaysa ma rabnee dadkaan meeshay doonaan ha aadeen annaga kuraasta iyo dadkaan hurdaan iska haysanaynaa iyo 1960 ilaa 1969 raggii noolaa saasay u fakirayeen inaan midnimo iyo waxaan nimankaan jibaysana waqooyi ka yimi dowladnimadan iyo waxaanay raadinayaan iyo shanta soomaaliya war annaga waxaas adeernama khuseeyaan waxaan rabnaa inaan xukunka haysano iska noolaano ya halkaas levelkaasay joogeen haddana waa kasii daran tahay maamul xaafadeed iyo calanle reer walba calan bay wataan reer waloo daarooda calan bay leeyihiin xitaa geriga etoobiya jooga calan geri bay samaysteen bartira calan bay samaysteen waxay ahayd akish waxay ahayd warkii la odhan jiray markii mudug deganaa laba jirib oo yaryaroo mudug deganoo maaragtay laylkase iyo ortable calan bay leeyihiin musikali calan bay leeyihiin wallahi waa hadalkii uu cabdirashiid cali shabaak sheegay reer la calana ma jiro hawiyana fasaadkii baa la geliyey iyagana sidii baa loo fasaadiyey hal sheekh saaqiigu mar horaaba la fasaadiyey laakiin hal fasaad buu hal calanun bay samaysteen iyaga soomaalinimadaba ha laga saaraa layidhi si u dhayi nimanka midnimada iyo jibbada shanta soomaaliyeed raadina waa maxaale geeskaa la geliyey 1960 ilaa 91 koobiyaa lama siiyo banaanka midba midku ka liitaa la shaqaalaysiinaya kuwii qiimaha lagana banaanka la dhigo hal doorkaaga marka la dilo oo nacaskaaga xilalka la siiyo hadhow lagu yidhahdo dhulkaba meeshaba idinka haysta maxaa rabtaan waa bahdil saasoo kale ummadda soomaaliyeed waa ummad isku maqan oo midba midka kala aasayo hawii daarood baa soomaali ka dhaqaaqi laadahay maaha shacabka hawii shacabka daarood kala hadlay anigu waxaan ka hadlayaa nimanka ismehersaday ee siyaasiyiinta ah adigu fiiri waxaa la leeyahay ururka mucaaradka ama sabata bixinta qaranka 4 ama 7 nin oo hawiyaha oo 3 ah oo gruub ah oo la yaqaano ayaa halkaas u istaagay walaaway mutacalimiinta iyo raggii haldoorkii reerka me ee dibad iyo guulo oo qarannimada soomaaliyeed u shaqeeyay ma cabdiraxmaan cabdishakuur iyo kooxda uu sheekh shariif hogaaminayo iyo fiqi oo dhinaca kale kasoo horjeeda iyo xasan ma intaasaa soomaali hawiyo u matashay waxay muujinaysaa reer walba intii ugu xumayd baa horboodaysa intii ugu liidatay baa xilalka haysata ummadda inay kala geyso mooyaane wax isu soo dhawaanayaan aan jirin allah dhoo sahal gabagabadii xaalka guud ee soomaaliya halkaasuu marayaa duulaan qaabo baa laynagu hayaa dadnimadeennii oo dhan baa la rabaa in la baabi'iyo waxaa la rabaa in bidixrayaal laynaga wada dhigo caruurteenna masiirkooda iyo mustaqbalka jiilasha soo socdaa loo fikiraya wixii laga yeeri lahaa wallaahi waa dhaartay dadka dibadda ka imanaya ee gaaladu ay wadatay xalana la isugu keenay iyo hargeysa iyo meel walba garoowe 3 maamul ee soomaaliya kala fadhiya xamar iyo garoowe iyo hargeysa kala fadhiya dadka qaar dibadda xitaa ka imaada iyaga u shaqeeya xitaa in la baadho qof aan la garanaynin inaan la soo dooranin soomaalida balaayaa lagu dhex abuuray dadkaas la wato ee marba dabkoodu shidan yahay faraa laga wada hayaa hala ogaado waa soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ha tashato anugu musharax baan ahay hadday baarlamaan iyo xildhibaan noqotona waxaan kasoo gelayaa waqooyi bari hadday madaxtinimo noqotona musharax madaxweyne soomaaliyaan ahay inaan wax xalliyaan u socdaay uma socdo inaan anigu sida xasan aan diyaarad fuulo oo aan diyaarad lacag raadiyo uma socdo maalinta doorasha dhacdo aniga magacayga
aan aniga iyo xasan isu soo hadhno aan anigu kursigaa ku fadhiisto waxaan qabaa maalintaasaa ugu dambaysa jaakad la gato dhar la gato dhar maaragtay lacag laga qaado bangi laga saaro maalintaasaa ugu dambaysa ummadda wax loogu qabto iyo badar in lagu shaqeeyo waxaan kusoo gabagabaynayaa hanuuniye iyo gabi ka dheer asalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته